السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلام دمان رير CS 18F دمان وين سلامه ومركل أيو جبتر 6 آريس كقصابسن. طبعا جبتر كان أسبوعي هو وحبان كقاضني آريس ك واللي بالله حد وحفي عن قاضني لكن سيادين كانوا يدون كن نقضوا ريفرنس أدو إلى كرا إن شاء الله وحسمين دونا waxaan sameyn doonaa haduu ilaahay karaan noqdo insha Allah dib u celi doonaa طبعا arrays waxa waaye waa variable kaasoo ku keedinaya wax ka badan hal number yani wuxuu ku keedinaya wax ka badan hal number yani waxa waaye simply marka rabto tusaale oo kale in list aad daabacdo oo shay list ka kooban marka rabto list magacyo ah أما وحي لم يده هنا دابعيد مركبتي وحواي طبعا وحوا بهان تاي ميلا كوكي سوما مركب variable سيدا عاديا variable إسكا حال تربس أيي كوكي دين عيان لكن سياري وحي كوكي دين إسا ليستي أما با وحكا بدن حال نمبر وحاجر اللبا نوع آري ساجرتو ميدو حالها one dimensional array ميدا كلمة حالو مغعابا two dimensional array أيالو مغعابا marka insha Allah 10 kan gaaban waxaan ku baran doonaa array sidee aan ugu abuuri karnaa markaan joogno Visual Basic how we can create an array sidoo kale waxaan kale ku baranaynaa hadii ilaahay karaan noqdo insha Allah farqiga u dhaxeeya one dimensional array-ga iyo two dimensional array hadii ilaahay karaan noqdo insha Allah ayaan ku baran doonaa waa tahay array sideen ugu abuuri karaa anigoo jooga Visual Basic أنا جوجا how I can create an array. Okay. array أرتو أن لهنو new file project أسوان أبو تجينا كدمنا حلنا هاي arrays بحننا. Okay عندنا كدب وأنا أبورنا واتهاي حربنا إن an array أبورنا كدبنا أو حكو كيدنا ربنا واتهاي عملنا هاي فارم array عملنا هاي okay واتهاي حربنا array إنان أبورنا okay عاديهان أن سمينا بل array مركا أبوري سيدو حليدا سيدو صوتا حليدا هاي وحشي جيسا طبعا array تقاب variable سوكرا الله أبورا طبعا حلينا هاي دين يعني هنا كدبنا array name مقع array غشي جيسا كدبنو حشي جيسا انت element arrayed inay ku keediso yani size keeda array size ka ayaad sheegaysaa tusaale 7 oo kale 7 hadii aan dhahno array-dan waxay inuu keedin doontaa elements oo 8 ah yani 8 element ama array of size 8 ay noqonaysaa 8 position ay yeelanaysaa sababtoo ah array markuu wax tirinayo waxa ka soo bilaabo from 0 kadibna wuxuu geenayaa to main array size -1 okay so from 0 to 7 معناه waxa waaye waa 8 waaye array-dan waxa leedahay 8 position ay leedahay okay waa tahay xalana marka tusaale kale ana hadda waxaan sameysanaynaa arrays oo magacyo aan ku kaydinayno ayaan sameysanaynaa so marka array-da waxa aad u qurux badan marka saas kadibna waxa leedahay as string waxa sheegaysaa tusaale kale nooc data type ay array-dan noqon lahayd ayaad sheegaysaa okay array-dan nooc data type-keeda uu noqon lahaa ayaad sheegaysaa kadib marka maxaa sameyn doontaa waxa dhig doontaa si soo socota okay arrays of 0 macnaha array name of 0 okay position 0 array koowaad ee 0 uu horeey maxaa ku keedinaysaa tusaale kale magaca xasan oo kale ku keedinaya okay haddana waxa imaanaysaa array وانا إيمانيسا بدون أيضا مجري عربتي تسأل آيات كوكيدنيسا لأنه إيمانيسا array أوكي قابكاس آيات array والمد والبابا قد قيمة قوسين كرتا أوكي آيات مد والبابا إلا أتجارتد لمان إلا أكبو حسيت position سكي مد والبابا قابكاس قيمة قوسينيسا أوكي مد والبابا قابكاس آيات قيمة قوسينيسا okay sida aad abuuri kartid array waa qaabkan qiimahana waxa uu siinaysaa 1 by 1 qaabkaas
ayaad u siinaysaa sidoo kale qaabka kalena daraada soo aragnay oo arrayda qiimo loo siin karo waa tahay soo markii aan saan qiimo u siiyo waan wadayaa waxaan leeyahay array magacaan ka bedeli waayahay waxaan leeyahay std names array arday magacyadooda ka dhigaya tusaale kale okay waa tahay mudada dhamaan okay kan waxaan ka dhigayaa std names okay position 3 waxaan gelinayaa tusaale kale Jacfar okay position 4 waxaan gelinayaa Salad oo kale okay position 5 waxaan gelinayaa Jama oo kale okay maxaa leenahay std sidoo kale position 6 waxaan gelinayaa Warsame oo kale okay position 7 waxaan gelinayaa Geedi oo kale okay kadibna waxaan leeyahay position 8 waxaan gelin doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo tusaale kale Jamila oo kale okay waa tahay mujada so aniga halkaan array abuurtay size-keedan 7 aan ka dhigay macnaha 8 position ay leedahay this is waxa lagu magacaabaa index number mar walba array indexkeeda mar walba wuxuu ka bilowdaa from 0 up to the number plus 1 hal ku dar minus 1 yani plus 1 sorry hal ku dar hadda arraydan markay size-keedu 7 yahay macnaheedu waxa waaye waa 8 position ay leedahay 8 element ay ka koobnaan kartaa waa tahay arraydii aniga hadda waa abuurtay kadibna waxaan rabaa inaan sameeyo maxay waxaan rabaa qiimeyn initialization oo ku sameeyay sooma array waxaan u sameeyay initialization waa initialize gareeyay maxaa ii dhiman marka hadda waxa ii dhiman arrayda waxa ku jira inaan soo daabaco okay maadaama arraydan waxa ku jira oo list yahay ila soco maadaama arraydan waxa ku jira oo list yahay waxaan sameynaynaa arraydan waxa ku jira maadaama uu list yahay ayaan horna hadaa xasuusatiin waxaan ka hadlaynay madaxweynayaasha Mareykanka da'dooda ayaan ku sameynaynay wax walba aan ku soo saarnay array marka ku noqosheer yaan sameynayaa oo kaliya la socdo macnaha waxaan ugu laabanahay haddii waxay tahay aan sharxay si adinka ay idin noqoto tusaale ku noqoshada u baahataan si aad idinkana aad ugu noqosataan ayaan u sameynayaa waa tahay arraydan marka saan soo daawacnaa dabcan maadaama arraydu waxay list yihiin waxaan isticmaalnaa halkan list box isticmaalaynaa okay list box markaan soo qaadano markii la soco waxaan rabnaa list box-ka arrayda inaan wax ka soo wixii arrayda ku qornaa inaan halkan ku soo daawacnaa rabnaa okay inaan halkan ku soo daawacno ayaan rabnaa waxaan leenahay marka karantayga yaray arrayda farteeda xooga iyo weynay waxaan ka dhigtaan leenahay tusaale 14 camal ka dhigan lahaa ama 14 ka dhig kadibna waxaan soo qaadanayaa hal button aan soo qaadanayaa maxaan leeyahay buttonkan ii soo qaad halkan dhig okay waxaan dhahayaa okay waxaan dhahayaa sida soo socota maxaan leeyahay halkan imaw farta weynay okay kadib qoraal waxa ku qortaa tusaale kale magaciisa xalla buttonkan generate names oo kale ama soo generate gareey magacyada aan leenahay magaciisa sala okay generate names oo kale la okay waa tahay markii lagu dhufto waxaan rabnaa in magacyada dadkaas ay soo baxdo ayaan rabnaa list box-ka horta magaciisa waxaan ka dhiganaa btn names aan ka dhiganaa btn names magaca buttonka kadibna waxaan marnaa halkan waxaan leenahay halkan imo magaca ka bedel waxaan ka dhiganaa student names list aan leenahay okay ayaan leenahay magaciisa waa tahay soo marka maxaa leenahay marka generate names markii lagu dul dhufto waxaan rabnaa in magacyadii arrayda ku jira in halkaan ay ku soo safmaan ayaan rabnaa double click aan ku siinaynaa waa tahay kana soo qaadanaynaa afwan hadeed meel kale nagu qornayaan qoraalkan soo qaad halkaan dhex dhiganaynaa waxaan dhex dhiganaynaa bt names click marka lagu siiyo buttonkan click marka lagu siiyo dhex dhiganaynaa okay waxaan leenahay intaas markaan rabno inaan access gareyno array wax ku qoran inaan soo daawacno markaan rabno sideen u access gareynaynaa using loop anagoo isticmaalayna ayaan access gareyn karnaa
sababtoo waxaan hal number maaha hal xaraf hal shay ma wado wuxuu wadaa waa bunch of names magacyo badan waa soo marka array waxaa lagu access gareyn karaa elementskeeda ayadoo la isticmaalayo loop ayadoo la isticmaalayo waxaan leenahay marka tusaale kale for aan leenahay tusaale waxaan leenahay name aan baxsanaynaa magaca name aan dhahaynaa as integer ama waxaa dhihi kartaa directed I as integer ahaan igu abuura leenahay waxaa ka bilowdaa marka equals I waxay ka bilaaban doontaa from 0 ilaa xagee marka ilaa waxay socon doontaa arraygan size-kiisa length-kiisa oo hal laga jaray maxaan dhahnay arrayda length-geeda meeqa waaye waa 8 mujadiin 0 1 2 3 4 5 8 waa soo ma sax ya soo marka maxaan leenahay marka function daraadna waa soo qaadanay length function la dhax jiro maxaan leenahay from 0 to arrayda magaceeda waxaan leenahay std names dot length aan leenahay mujada dot length يعني arraydaas length-geeda oo laga jaray 1 hal laga jaray ayaan leenahay okay waa tahay sorry kan marka 8 kan afwan 8 kan meesha kuma jiro dabcan from 0 ila 7 waa saan wuxuu ku yahay 8 ku yahay 9 waa sorry saan wuxuu ku yahay 8 position mujadid saan 8 position sababtoo 0 ka bilow ila 7 waa macna waata maxaa leenahay std names dot length minus 1 aan leenahay okay kaas oo laga jaray hal waa tahay kadib maxaa leenahay enter leenahay list box qaabkeen waxa uu soo dari jirnay waxaan dhihi jirnay list box magaciisa sheeganay soo ma kadib waxaan dhaynay dot items aan dhaynay kadibna dot add aan dhaynay soo ma ku soo daraan leenahay maxaa lagu soo daraa marka waxaa lagu soo darayaa std names kadibna waxaan sheegaynaa I ayaan dhaynaa micnaheedu maxaa way kan marka koo markii la soo galaa I waxa laga bilaabaa 0 markii la fiiriyo ilaa laga gaarayo listigan minus 1 kiis yani ilaa iyo arraygan laga gaarayo length-geeda oo hal laga jaray maxaa leeyahay marka 0 ka bilow item std names I hadda maxaa waa 0 soo ma waxaa la soo gelin doonaa std names of 0 iyo ahaa xasan haddana waa la soo wareeganayaa haddana I 1 ay noqonaysaa kadib haddana waxaa la soo gelinaa std1 oo farxi ah haddana 2 3 4 5 ilaa laga gaarayo std names dot length-geeda oo hal laga jaray ilaa laga gaaraya okay std names length oo hal laga jaray ilaa laga gaarayo soo ma soo marka ilaa laga gaarayo std of 7 ilaa laga gaaraya okay maxaa leena marka save garay kadib maxaa leena marka sorry charger-ka iga baxay okay aan ka gaarsiiyay bal waa tahay maxaa leena marka aan rangareyna marka waa save gareynay aan rangareyno okay haddii aan generate names aan dhahdo waa kaasaan u jeedin xasan farxiyo yuusuf jaafar salaad jaamac warsame geedi iyo xilamida u jeedin soo ma waaye aan sii badsada bal halkan waxaan ka dhigayaa position of 12 aan ka dhiganayaa okay waayahay halkan maxaa leenahay std names 12 aan ka dhigtayaa la soco names of 8 wuxuu la mid yahay abshir okay std of 9 wuxuu la mid yahay waxaan leenahay wuxuu la mid yahay Beirut okay timo kadibna waxaan leenahay halkan okay hadda waxaan leenahay std names of 10 wuxuu la mid yahay leenahay tusaale oo kale khadar okay khadar okay std names of 11 wuxuu la mid yahay aan leenahay tusaale oo kale yaasiin oo kale leenahay okay std waxaan halkaas of 12 waxaan leenahay tusaale oo kale Mohammed wuxuu la mid yahay ayaan leenahay okay so arrayda size-keedan sii basanay haddii aan halkaan imaano markaan okay aan rangareyno generate names markaan u jeedin soo ma waa kuwaas qaabkaas ayaa loo soo bandhigay okay maxaa isticmaalaynaa marka waa kana arrayda waa abuurnay kadib qiimihii 1 by 1 aan u siinay
then by loop aan kusoo akhrinay loopkaasna waan sharaxnay okay from I up to std names dot lengthgeeda oo hal laga jaray ayaa la wadaaya hawshaas ilaa dhammaan ay kasoo galaan warkaas waa cadday soo ma waayahay daraadna waxyaabihii aan soo qaadan way ka mid tahay arraydan haddii aan sorting inaan ku sameeyo rabo ka waran bal hadda tusaale kale markaan ku dhufto ujeedii soo ma sidii loo soo geliyay waay sorting ku sameyn karaa ha sorting ku sameyn karaa okay maxaan leeyahay horta halkaan imaanaya halkaan ayaan imaanaya waxaan leeyahay arraydan banaankaas aan kusoo qoraya yani kor aan ku qoraya waxaan ka dhigayaa public aan ka dhigayaa yani public aan dhigin waxaan ka dhigaa global aan ka dhigayaa okay global aan ka dhigayaa si aan global uga dhigano waxaan ku qasbanahay inaan halkaas dhigo soo ma halkaas aan tagay marka okay marka meeshaas tagay kadib marka yani halkaas marka ku qoro waa ogtiin global oo noqona soo ma waxaan rabaa marka okay waxaan rabaa marka inaan sameeyo soo ma waa tahay halka inaan laba button waxaan kusoo darsanaya kale waxaan leeyahay buttonka magaciisa waxaa lahaa sort names okay sort names buttonka magaciisa waxaa lahaa sort names magaceeda waa la sort gareynayaa sorting waa taqaani soo ma waxaa loo list gareynayaa btn sort names aa lahaa okay halka marka dib buttonkan kaliya lagu siiyo maxaa la sameyn doonaa buttonkan markii kaliya lagu siiyo okay kan horta isoo koobiyay majeeda qoraalkan isoo koobiyanaysaa lana markii buttonkan kaliya lagu siiyo okay waxaa sameyn doontaa qoraalkan kuwan dhan waa yaalaan waa ujeedaan soo ma soo koobiyanay marka soo koobiyana marka waxaan leenahay array magac array lena dot array magaceeda sheegaynaa arrayda magaceeda maxaa la dhahaa std sorry waxaan sameynaynaa markii aan rabno inaan sorting sameyno waxaan leenahay array dot sort aan dhahaynaa okay array dot sort garayaan leenahay okay waxaan leenahay array dot sort aan leenahay daraadna soo aragnay kadibna arrayda magaceeda sheegaynaa std names aa la dhahaa soo ma arraydaas ii sort garay okay bas khalaas way fahamtay soo ma meeshaan waxaan leenahay equal markaasaan dhahno sorry court waa inaan clear dhahnaa ila socda haddaati casharkii horena ku aragna chapter 5ka sub yara abuuranaynaa sub aan leenahay subtaas waxaan dhahnaa clear list okay aan leenahay waxay sameyn doontaa sida soo socota waxay sameyn doontaa students list lagu magacaabo ay ku sameyn doontaa dot clear ay ku sameynaysaa dot waxay ku sameynaysaa oo ay tirtiraysaa dhammaan listiga wixii ku jiray ay waxay ku sameyn doontaa clear ay ku sameynaysaa okay waa tahay waxaan sameyn doonaa sida soo socota waxaan leenahay dot items dot clear aan leenahay okay clear garayaan leenahay ujeedaa soo marka halkan waxaan u wacanaynaa anaka markii la dhaho buttonkaas marka hore waxaan leenahay iga clear garayaan leenahay okay waxaan leenahay waxaan wacanaynaa subkaas ama procedurekaas clear list lagu magacaabo ayaan u wacanaynaa okay waxaan leenahay markaa rangaray okay markaan rangarayno okay waa kan ujeedaa haddii sorta aan dhahno waa kaasa abshiro ayaa u horeysa b si u kala horeeyaan y u dambaysa ujeedaa ayaa waxaa lagu sameeyey sort loogu sameeyey okay sidaasa sort loogu sameeyey waayahay reverse ma sameyn karaa tusaale inaan yusuf kor mariyo abshir ma u hoos marin karaa haa maxaan sameynaa ayadana sidoo kale waxaan tagaa tusaale oo kale halkan button cusub aan abuuranayaa oo la dhaho tusaale reverse okay reverse names aan dhahayaa kadibna btn kan buttonka magaciisa maxaan ka dhigayaa btn reverse names okay kadibna sidii oo kale aan leeyahay intaana soo qaadanaya waa intii koobiyan soo dhahaya okay kadibna waxaan imaanaya halkan kadibna ku paste gareynaya okay
kadib maxaan leeyahay bas halkan sortiga waxaan ka dhigay array dot reverse. Okay, reverse ku sameeyaan leeyahay. haddii aan tahay halkan fiiri marka generate names marka dhawa ka saa sort haddii aan dhawa sort karena reverse haddii aan dhawa ka saa mujeda maxaa la sameynayaa cagsi la sameynaa reverse markaan dhaho sort waa kas reverse na si cagsi ah loo soo daabacaya. Okay, waa isfahmi soo ma waayahay fortan meeshan aan isticmaaleyno marka waxaa jirtaba oo aan casharkii horena aan kaga soo hadalnay oo loopiska aan kaga hadlaynay wax la for each loopkaas waxaa loogu talagalay oo kaliya arrayska loogu talagalay meesha hadda aniga aan ka isticmaalayo hadda fortan aan ka isticmaalayo noocaan aan ka isticmaalayo waxaan dhahayaa oo aan dhihi karaa anoon isdhibin for each aan isticmaali karaa for each maxaa leeyahay marka halkaan imaanaya waxaa leeyahay for each. Okay, for each aan leeyahay for each. Okay, kadibna waxaan leeyahay waxaan sameynayaa tusaale items oo kala variable isaga baxsaa string aan ka dhiganayaa. Okay, waxaan leeyahay for each items oo string ahaan loo abuuray variable kan in aan leeyahay kadibna waxaan sheegayaa std name magaca arrayga sheegaya kadibna enter aan leeyahay. waxaan leeyahay item walba ku jiro waxaa soo akhrisaa std names item walba ku jiro 1 usoo akhri kadib maxaa leeyahay halkan waxaan leeyahay student list dot items dot add aan leeyahay kadibna waxaan sheegayaa magaca arraydan sheegayaa خلاص waa isku dhamaatayba meesha data and index number kan iyo 1-1 iyo length iyo waxaasi arrayda lengthigeed asaa yaqaan automatically marka arrayda halkan aan u sheego lengthiga asaa yaqaan. Okay, for each items in std names length asaa yaqaan marka meeshan hadda u sheegayo waxa xasuustan soo ma meeshan u sheegtaan u baanad hadii aan dhaho okay waa ka sawa isla meeshii. Okay, waa kas okay this problem yaa jira meeshaas waxaa ka jira hal problem ka jira problemkaas aan bal fiirino lana for each items yes halkan waxaan leenahay items waa inaan ka dhignaa halkaas waa inaan items ka dhignaa waa kaas ujeedaan soo ma hay dhammaan for each taasaan u isticmaalaa meel walbaba waxaa imaanaya haddana sortiga imaanaya isagana waxaan ka dhigayaa tan ka dhig haddana waxaan imaanayaa reversiga imaanayaa daraad xisaabaadka maxaan ku arkaynay in la isku soo dardaro soo ma oo nambarada array walba tirooyin ku jiro in la isku soo dardaro sum loo sameeyo la isku daro kadib in oo la soo saaro average-kooda waxaas dhan waa aragnay soo ma waa tahay generate haddii aan dhaho source haddii aan dhaho reverse haddii aan dhaho ujeedin soo ma. Okay, that is how you can use an array. waayahay topic inoogu xigo waxaa markan hadda waxay ahayd one dimensional array wax lagu magacaabay one dimensional array. waxaan arki doonaa hadduu ilaa karaa noqdo insha Allah two dimensional array ayaan arkaynaa hadduu ilaa karaa noqdo insha Allah. multi dimensional array waa array leh two positions leh waaye. Okay, qaab row iyo column ahaan ayayna waxay u sameynaysaa waxa u keedinaysaa. Okay, waxaan leenahay marka aan tagno visual keena soo kicinaynaa leenahay new project gana magaciisa waxaan u baxsanaynaa multi dimensional array ayaan u baxsanaynaa kadib waxaan leenahay okay aan leenahay waayahay. Okay, markii la soco meeshan waxaan sameynayna soo socota tusaale oo kale waxaan soo dhiganaynaa marka horta aan koodka ahaan aan fahno kood ahaan aan u fahno multi dimensional array waxa waa tusaale arrayga marka abuuraysid qaabkan waa abuuraysaa waxaa leedahay dim array magaceeda sheegaysaa. Okay, array name adaysa kadib maxaa sheegaysaa size-keeda 2.2 tusaale oo kale haddii aan rabo macnaha waaye array waxaa la ismeynayaa ka kooban 2 column iyo 2 row ka kooban ayaa liisameynaya. Okay, tusaale oo kale two dimension kan qaabkan oo kale u shaqeysa tusaale oo kale waa aragteen matrices oo kale 1 2 3
سنة عمل شخص سوما لقرا 6 قاب كان أو كلواي أنا 2 dimensional array أوكي 5 1 هاي 7 8 9 و 2 dimensional وحل هذا هاي كوورت rows إيوه حل هذا هاي columns so 1 dimensional array عادي جاي أركتين بس وحولها ساس وحولها 1 row بس وكوكبنا 1 row أوكي كسا 1 row وكوكبنا ساس وكله قرناي وحساس وكله واي وقاب كاس وكيدنا لكن كان row إي column هان أيوه وكيدنا واتهاي 2 dimensional array أون waxaan ku keedinaynaa qiimo marka waxaan leenahay markaan qiimo ku keedinayno hadda arraygan isla waxaan leenahay std names oo kala leeyahay okay waxaan leenahay arraygan wuxuu noqon doonaa 3 column iyo 3 row ka kooban yahay macnaha saa sheegnay 0 ku soo bilaabo 0 1 2 kan waa 0 1 2 okay waxaan leenahay marka su'aal kale waxaan leenahay std name 0 0 yani magaca ardayga يالا بوزيشن كزيرو زيرو يالا بوزيشن ككوبات يالا حوايه عالي اوكي معلنا هذا std names 0 1 اوكي قفك يالا وحالة استام يعيسو حالات صار قرأ صفية لها صفية اوكي قفك std names 0 2 qofka magaciisa ku soo kareysan yahay waxa laha tusaale salaad okay intaas waxa dhamaaday column 0 ayuu soo yaa dhamaaday waaye waxa hadana ku soconaya kan labaad kaas waa midkii koowaad oo ah laakiin 0 ku soo bilaabay Soomaa waa kaas kan halkaan waxaan ka dhigayaa 1 ka dhigaa 1 dhigaa 1 okay waxaan ka dhigaa 2 دينا 2 كنا خدينا 2 جدا كوي كان هنقنا سؤال كافي كمال اوكي وردة اوكي انتهي انت نحلنا هاي قولت عبد الله قاسم وكذا اوكي واتاي وجد سوما واتاي marka inta sameeyna marka waxaan rabnaa marka inaan soo daawacno Soomaa waxaan rabnaa inaan soo daawacno marka rabno inaan soo daawacno halkaan waxaan dhiganaynaa label weyn bal aan dhigano okay label kan aan inta dhigano kadibna aan ka dhigano label outsize kiisa aan false ka dhigo كديمنا border عن سمية sorry border كيسي عن كدي fixed 3D وين عن كدي جاي okay كديمنا فرتيسنا عن وينيو okay okay كديمنا فرت هذا قرن عن كدي جايا وان يرينا يا okay فرت هذا قرن عن كدي جايا وابو عن بحيتاس okay كديمنا عن لا هاي waxaa ku aadisaa aan leeyahay dhaxda bal ku aadi okay waa tahay intaas markaas marka formkeena markuu soo kacayo waxaan rabaa ma aniga ka xalana ifaarin array ani formkeena markuu soo kacayo waxaan rabaa magacaas in soo daawac Soomaa bal waxaan leenahay marka halkaan imaanayno waxaan leenahay for and each okay items in std names leeyahay label label ka magaca soo baxsan miya waa label 1 way kulli laazim label 1 dot text ku dartaa items okay kadibna aantarna kan marka mujada waa kana Ali Safiya Salaad Kaafi Kaamil Warda Guuleed Abdul Qaasim okay bal isku soo daawacay dhamaantood yani okay
waa tahay kadib marka haddii aan dhaha rabo ka baran bal waxaa sameysaa VB tab dheh. Okay, VB tab dheh xoogaa in la kala sikiyo aan sameeyo. Okay, VB tab ma shaqeynin. Okay, taas ma kaanaya. Yes, waa kan waa kala space yar u dhaxaysiyo oo jeedin soo ma waa kaasa isla sidii loo two dimensional array qaabkana loo sameeyaa. Okay, so marka inta badan practical ma inta badan lama isticmaalayo ma isticmaali doontaan ayobso taas one dimensional array ga insha Allah dib la kaan noqdo xooga saara waxaan rajeynayaa in array ga aad si fiican u fahanteen. waxaan hadda xooga ku saarayna waa practice waa jabtarada hadda aan duubeyno hadii la karaan insha Allah. Thank you all. Aad mahadsantiin. That is for today. Jabtarkan inta soo nooga yahay arrays ku saabsan. Insha Allah see you at the next chapter. Insha Allah jabtarka soo socda ayaan ku kulmi doonaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.